warshadan oo balcad 66 ayay tacab bilowday 61 waa la dhax dhigay marka waxa loo shaqeyn jiray 3 waqti subaxda la soo galaa 9 saac la baxa 9 saac la soo baxa 5 saac la galaa 5 saac la soo galaa subaxda laga baxa 3 kale marna badameyna waagi horo mashiino oo kuwa gacanta looga baxay liindiga ayaa shaqeey jireen kuwaas annaga ku shaqeeyayno ay Jarmalka iyo Soomaali oo shirka ay yihiin ayaa aniga imid gacankii yaa dhashay warshadii waa la qarameeyay tacabkii hore waa yaraay mashiinada gacanta looga baxayeen mashiin waxaan oo la keenay halkii mar 4 maro ka bixayso oo cadadooda ay tahay 154 mashiin suuf marka waxa ka keensan jirnay daafeed baladweyne dhaxyahaana suuq weyn oo caamkanahay taasoo ahay dhaxyaalka wixii ka baxana waa noo keeni jiray marka suufka saas ay tahay ayuu annagana kaafin jirin suufka marka waxa ka keensan jirnay Mareykanka iyo Suudaan suufka ayay ka saartaa miraha suufkii oo kale soo saartaa nin la kuleer Maxamed Nuur oo warshada markaa ka ahaa asaga maareeya markuu soo gaday waxa la Soomaali waxna ma qorto waxna ma akhris masiina casri waaye waxay u baahan yihiin dad wax qor waxna akhriyo wuxuu yiraahdaa dad macna fiican la leesiyo Soomaali wixii la tuso la tuso waa keenaysaa marka niman gaalaha lagu soo diray mashiinada noola baray mashiinada sida ku baranay sida tacab soo saar jirnay annagoo joogno ayuu gacankii oo baxay oo nagu burburay waxaan ka maqneen sitimaan camal warshada marka kadib dib ugu soo noqonay kadib dadka ka celinay warshada sidaas ayay ku badbaaday waxay sameey jirtay ciidamada dhan dharkooda oo soo koobmaynin dhammaan wixii qalabka sida dharka waa sameeysay dharka iskuulada waxay sameeysay baatiyaasha waxay sameeysay daahiyaha oo guriga lagu sharaxdo waxay sameeysay dharka la isku duugo karfanta yoonkii waxay soo saari jirtay 70,000 oo yaar soo saar jirtay warshadan warshad waxa waa casri waaye warshad oo yaani warshad adduun la tartami karta waaye waagi hor gaalada waxay dhigi jireen warshadiin waxa loogu tala galay Afrika lama sii kara 150 in Afrika oo dhan dharka siisin mar haddii asla kacdo ee waxaan dharka sameeyaan Soomaaliya waa ka badan tahay انت waxa mashiinadii wax dhaqaay dharka dhaqaay cadeehay midabka dhigay waayo roob wuxuu nooga dheelay kibil maane wax kale naga halaysan malaha laakiin
waxay u baahan tahay isbeer baartiyay rabtaa waxay rabtaa waxa la yidhaha daxal reeb warshadii sida kaleento waa ku fiyaawadahay mashiinka waxaa waay mashiinka fanaanada sameeya waaye wareeg oo ku sameeyaa dharka wareeg ku sameeyaa istoorkan ayaa naga gubtay daanaha reer Soomaal Texas 3 maalmood 4 maalmood ee warshada bilan ku socotay markii ugu horeysay daawooyinkii kimikaalka wixii isku dhaceen saasay u gubteen marka istoor weyn oo wax ka baqan lahayn ayuu ahay wax naga gubtay istoorkaas ka jiro wadada waxa waaye wadada shaqaalaha markii oo shaqeeyaan ee laba sax amal ay shaqeeyaan shaqaalaha quraacda ku door jiraan isbitaalka warshada waa kana oo shaqaalaha laga daaweeyo dad oo laga dhalay warshada marka waxay kala yihiin qaarna waa Jarmal qaarna waa Talyaani warshada dhan telekoma warshada dhan warshada waa tana inta mashiin inta qaybaha kala yihiin inta laga xukumo dadkii shaqaalaha warshada ka shaqeeyay waaye marka halahan hadda u yimid waaye oo subaxan shaqeeyay marka subax kastaba waa la xaadiraa intaana joogtay ka badan ummada Soomaaliyeed waxa uu baaqaa madaxda Soomaaliyeed waxa uu baaqaa warshad tustaan farmaajo hanoo yimaado hershi la yimaado hanoo yimaado inoo yimaado aan dhahay markaas ku qariyo tagno war qaajaan hays wax noo qabta war warshadaas haystina maarta ma gadantiino war marka ma gadanin waa hayne ummada u hayne hadda indhiya beelnay dhagiya beelnay madaxya beelnay waa soo darsoonay yaa muslim oo warshad u taliyo yaa muslim warshad u taliyo muslim u taliyo warshad hala keeno